السلام عليكم أحبابي. أنت وينو أردينا، أنت وحبينو تبعينا، أنت وحبينو أخرينينا، أنت هول بينو كجرنا. هدنا واحد مودا إن محصولكي iyo natiijadii nolosheena inay meesha ka maqan tahay oo sidii juhdigii waxaynu gelinay waqtigeenu wax gelinay dhaqaaliyeena wax gelinay aqoontii iyo akhriskeena wax gelinay iyo maxsuulka soo baxaya inay aad u kala yar yihiin mid ka mid ah waxyaabaha maanta bani aadamku caalam alislaam iyo caalamka galbeedka iyo meel walba waxyaabaha bani aadamku maanta ula tacaalayo ayay ka mid tahay waxaa jira concept ama fikrad islaamiya oo aad u qurux badan oo ah ingredientka waxa keliya ee maxaa la yidhahdaa cuntada marka waxyaabaha ay ka kooban tahay milixdu hadday ka maqan tahay si kastoo loo carfiyo si kastoo loo geediyo si kastoo loo qurxiyo waxa ka maqnaanaya dhadhankii baa ka maqnaanaya nolosha dhadhankeedii iyo barakadeedii iyo quruxdeedii way maqan tahay meesha ay ku jirtana waxa weeye albaraka barakadu waxay culimmada odhan jireen hiya thubuutu lkhayri ilaahi fii shay waxa weeye waa khayrka ilaahiga ee ku lamaan walhaha wax kasta oo ku lamaan yahay khayrka ilaahiga uu barakooba uu bulaala laba arrimood bay culimmadu tilmaamaan inay barakadu faa'iidayso tukaad waxa weeye annumuu waziyaada inay korodh iyo kobac keento korodh iyo kobac inay wax kasta ay gasho ay taabato ha yaraado ama ha bato korodh iyo kobac bay keenaysaa sidoo kale qodobka loo maxay al-istimraariya in wixii uu daa'imo uu socdo oo aad ku joogtaysmo maal waqti cilmi wax kasta uu galo barakada ilaahiga ay gasho idan muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago 7 wado oo barakada ilaahiga lagu helo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtigaaga hadduu kuu geliyo skillskaaga hadduu kuu geliyo cilmigaaga hadduu kuu geliyo maalkaaga hadduu kuu geliyo noloshaada qoyska noloshaada hadduu kuu geliyo ay barakoobayso waa input barakadu waa maxay waa waqti yar ama wax yar oo inputa laakiin x maaragtay outputka ka imanayana uu aad u fara badan yahay input yar maanta nolosheenu waa maxay input fara badan baan gelinaa outputka uu yaryahay barakaduna maxay keentaa in input yar waqti yar aad wax fara badan ku qaban karayso cilmi yar aad wax badan ku kordhin karayso maal yar aad noloshaada wax badan ku qurxin karayso haddii aad nagu cusub tahay soo dhowo magacaygu waa mubaarak haadi waxaan ahay qoraa iyo tababare qodobka koowaad qofku noloshiisa hadday dhaqaalihiisa noqoto hadday waqtigiisa noqoto hadday si guud noloshiisa dhan noqoto uu qofku baraka ku gelin karayo waxa weeye waa jarmaado iyo kalahaad jarmaado iyo kalahaad waa mid ka mid a xikmadaha tan iyo inta bani aadamka uu garanaya taariikhda bani aadamka ilaa maanta scientifically iyo si walba loo ogaaday nabigina salaatu bisraacatu lahaa buurika liummatii fii bukuuriha taasaa daliilka ah in maanta cid waliba ay ka warramayso faa'iidada ay leedahay ka lahaado nebi sal slam xadiis uu tilmaamayo sakhar alqaamidi oo xadiidkaa horena wariyey ayaa wuxuu leeyahay nebi sal slam wuxuu odhan jiray allahuma baarik fii ummatii fii bukuuriha oo kama qaala calayhi salaam ilaahayo ummadayda waqtiga aroorteeda iyo kalahaadeeda ilaahayo baraka u geli wuxuu tilmaamayaa sakhar alqaamidi nebi sal slam ma jirto hawl weyn uu qabto salawaatu rabbi salaamu caleyh aroorta hore u qaban jiray hadduu ciidan dirayo hadduu sahan dirayo haddii uu ma aragtaye wafdi dirayo dhammaan arrimihiisa subxana allah yani waxaa jirta muuqaal aan kaga warramay webinaar aan kaga warramay nolol maalmeedkii nebi sal slam haddaad eegto 12 aroornimo waxa ka horeeya shaqadiisa oo dhan buu qaban jiray salawaatu rabbi salaamu caleyh baraka weyn baa marka ku jirta in waqtiga hore barakada ilaahiga ah ee ducada nebi sal slam ee ku laman waqtiga qofku inuu ka faa'iidaysto waxaa jirta survey ay ku sameeyaan 5,000 ee kambani ee ugu horeeya ee galbeedka CEO-yadooda ayaa survey lagu sameeyey deetana waxaa la soo baxdoo la ogaaday 64 in ay kacaan CEO-yada weye 64 ka mid ah in ay kacaan 6 aroornimo wixii ka horeeya daraasa kalena waxay tilmaamaysaa in 9 ka mid ah aanay hurdadu ku gaadhin 7 aroornimo yani 9 ka mid ah CEO-yada kambaniyada waaweyn ee caalamka warangareynayo dhan in aanay hurdada ku gaadhin 7 aroornimo idan marka waxa weye haddaad doonaysa noloshaad inay baraka gasho oo barakada ilaahiga ah ee aroorta hore ku jirtay ku lamaan inaad ka faa'iidayso aad doonayso waa inaad aroorta hore aad ka lahdo ood salaada subax marka aad tukato wixii ka dambeeya inaad hurda ku noqon inaad waqtiga aad ka faa'iidaysato qodobka labaad ee aad noloshaada iyo waqtigaaga iyo maalkaaga iyo cilmigaaga aad baraka ku gelin karayso waa maxay waxa weeye waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka dhowrsato dembiyadana ka dheeraato ilaahay subxana wa tacaala waad garanaysaan wuxuu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala qur-aanku leeyahay ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هدي ددك قريada ku nool ama magaalada ama tuulada ku nool ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhowrsan lahaayeen ka baqi lahaayeen iska ilaalin lahaayeen waxaan u furi lahayn albaabada barakada ee samada iyo dhulka ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay
ka dheerow inaad dembiyada ha yaryaraadaan ha waaweynaadaan ka dheerow waxa la yidhaahdo daraamada iyo xanta iyo isqabqabsiga haddii daraamo faamili noqoto haddii daraamo facebook ka socoto noqoto haddii daraamada siyaasadda noqoto waqtiga waxyaabaha dilay ka mid tahay ma jirto sida maxaan oran karayaa sida aashitada bateriga ay u gogoyso waxa ay la kulanto si ka daran bay dembiyada iyo xumuhuna ay u burburiyaan maxay caqligaaga dembiyadu waxay burburiyaan garaadkaaga iyo intellectigaaga waxay burburiyaan xirfadahaaga waxay burburiyaan waqtigaaga waxay burburiyaan maalkaaga yacni noloshaada oo dhan barakada ayay ka siibaan marka ina ilahi subxana wa tacaala aad ka dhowrsato dembiyadana aad iska ilaaliso ood ka dhowrsanaato aad bay marka muhiim u tahay haddaad doonaysa noloshaada inay baraka gasho waqtigaa inuu baraka galo cilmigaaga inuu baraka galo ka dheerow dembiyada ilaahi subxaana wa tacaala meel walba aad joogtana ilaahi subxana wa tacaala ka baqa ittaqi illaha xaytama kunta meel kastoo joogto ilaahi subxaana wa tacaala ka dhowrso sidii inay kamarad kugu xidhan tahay bini aadamka waynu ka baqnaa markay kamarad meel ku xidhan tahay waa is ururinaaye in ilaahi subxaana wa tacaala ay ku abuurtay meel walaad joogto markaad joogto in ilaahi subxana wa tacaala ku daawanayo dareenkaa iyo awarenesska wuxuu keenaa in noloshaada ay barako ku gasho waqtigaagu baraka uu ku galo qodobka saddexaad waxa weeye in aad cilaaqa la yeelato shayga ugu barakada badan aynala yaala shayga ugu barakada badan ayna dhex yaala waa maxa waa kitaabka rabbi subxaana wa tacaala kitaabka waa kitaabun anzalnaahu mubaarakan yadabbaru aayaati kitaabku keliya ma aha barako keliya ma xambaarsan bale waa oraaxdii iyo hadalkii barakoolaha ilaahi subxana wa tacaala waa tabaarak تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي أنزل الفرقان إلى سبحانه وتعالى إساقا إلهي وصورسكي بركة عن قرادين نولوشينا كمخن وصورسكي إشي بركة سي أي كإيمانيسي ويا بركة واحد كليين أجيا هو بركة بدن وكتابك إلهي سبحانه وتعالى ويبقى سورة البقرة سورة الله لحدينا إن أنت أود آخر صدن دقيقة وردي يومية إن تكيلته أود قرآنك الله نولاتو قضبك أفراد حوي إن مالين تالا aad si uun aad cid noloshooda aad qayb uga noqoto farxaddeeda waxsiinteeda caawinteeda aad qayb uga noqoto by the way tan ku dheeraanshaheeda iyo isku dhex waayideedu waxay keentaa cagsigay keentaa u fiirso dad fara badan ba maanta waxay u nool yihiin in ay dadka isku dhex waayaan oo ay noqdaan yacni daxiya yacni ay noqdaan kandal dadka kale u daaran oo noloshiisa iyo qoyskiisa iyo hawlihiisa iyo adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba u bayleeya dad kale si uu wax u xataro waxaweye taasi waa halaag taas adaa isdilaya ee tan ka hadlayna waa maxay in maalintaada adigay kuu qorshaysan tahay oo waxaad qabanaysa yaqaana haddana markaad jidkaa maraysa qof caawi cid la caawiyana waxaa ugu muhiimsan dadka ehelkaaga caruurtaada waqti la qaado saygaaga waqti la qaado xaaskaaga waqti la qaado barako weyn baa ku jirta ehelkaaga wac qof faamilkaaga iskale ku dhufo telefoonka iska waran dheh qof aad maaragtay wax yar aad islaada u baahan yahay kaga farxi caawi waxaan kula qabtaan rabaa maanta kula fududeeyo bal farxaddaasi waxay keenaysaa tamar iyo energy iyo firfircooni iyo xamaasad muddo yar oo kooban aad ku qaban karayso wax fara badan aad ku qaban karayso ayaad ka helaysaa qodobka shanaad waxa weeye waa xamdinaqa iyo ilaahi subxana watacaala inaad ka mahadnoqdo nimcooyinka tirabeelka uu ku siiyey by the way dee maanta productivity marka laga warramayo gratitude waxa la yidhahdo khasab waa inuu ku jiro waa laga warramaya inaguna dee mar walba ilahi subxana watacaala intaas aayadood baa inoogu tilmaama adkaarteennii bay ku jirtaa nolosheennii bay ku jirtaa salaadeennii bay ku jirtaa dhan walbay ku jirtaa bale waa qaacida min qawaacid ilkown ilaahi subxaana watacaala qaacidooyin kownka u sameeyey ayaa maxay tahay lain shakartum la aziidannakum waa ballan ilahi u qaaday mid ka mid a saddexda ballamood ilahi subxana watacaala u qaaday ayay ka mid tahay lain shakartum la aziidannakum ilahi subxana wataala markaa ugu mahadnoqdo ama buug qor oo buugii dad fadhiisato maanta gratitude journal waxay samee ama tusbax qaado ama meel cidla keligaa fadhiiso laakiin mar walba inaad ilaahi subxana watacaala nimcooyinka uu ku siiyey iyo wanaagada uu ku siiyey inaad ilahi taala uga mahadnoqdo iyadana barakaad ku yeelaysaa markaad noloshaada una fiirso actually not only productivity maxaa inta badan productivityga inoo diida inaan wax qabano inaan waqtigan ka faa'iidaysano waa maxay waxa weye waa welwel waa procrastination waxa weye waa naftaadoo aad qawadayso self doubt waa negative thoughts fara badan oo inagu hareeraysan laakiin subxaan allah yani qofku marka uu xaaladda uu ku jiro mahadnaqa iyo gratitudeka uu ku jiro subxaan allah yani maskaxdiisu
wixii kale negative-ka waa ka maray yani haddii si loo yidhahdo waxa weeye noloshaada waxaan kaa hortaagan caqabaadka nolosha kaa hortaagan kuu diidan horumarka iyo productivity kuu diidan waa maxay waa dareemada negative-ka ah waa niyad jabka waa depressionka waa stresska waa walwalka waa procrastinationka waa perfectionismka waa self doubtka waxaas oo dhan weeye oo leedahay haddii aad saas samayso bilow sidan haddii aad sidan tiraado bilow sidan armay sida noqon weyda waxaa maadaama awood u leh kan wey keer wey waxa daawada u ah in badanoo ka mid ah waxa weeye inaad xaalad gratitude oo farxada oo ilahi subxana taala uga mahadnaqayso inaad ku jirto waayo laba taad oo midna negative yahay midna positive yahay mid togan yahay midna taban yahay maskaxda biniaadamku markuu muuqdo kulmaan idan marka waa occupied inaad ka dhigtid mahadnaqa rabbi subxaana watacaala qodobka lixaad waxa weeye in aad isku hareerayso dad productive ah kana dheeraato dadka daraamada iyo hawsha iyo aanan ahdaafna lahayn ahdaaftooda qaar badan baa ahdaaf leh laakiin aan ka faa'iidaysanin waqtigooda dadka inaad ka dheeraato iskuna hareerayso cid productive ah cidka productive-ka qaacidada uun isticmaala mar walba noloshaada aad eegaysa qaacidada u isticmaal shanta qof ee kugu hareeraysan average-kooda un baataa shanta qof ee kugu hareeraysa hadday yihiin dad aan waqtigooda aad uga faa'iidaysanayn oo aan wax waaweyn ka fakerayn oo aan productivity-ga muhiim la ahayn dee adiguna iyagan average-kooda baad noqonaysaa idan marka dad maaragtayay intan baan ka warramay hadday qur'aan akhris noqoto hadday taqwada rabbi noqoto hadday maaragtayay kalaxaadda aroorta hore noqoto hadday noloshoodii dintooda inay ku mashquulsiin ku foogan yihiin ay noqoto hadday noqoto qof family man dadka family manka barako badan baa la socota idan marka dhan walba markaad eegto dad maaragtayay barakada aad ka dhadhaminayso waxtar iyo wax soo saar aad ka dhaminayso isku hareere kuwa kalena ka dheero qodobka toddobaad ee kusoo gabagabeynaya waxa weeye in aad raadiso raacdayso ku raad joogto wax wal oo la xiriira productivity hadday noqoto xirfadaheeda hadday noqoto tabaheeda iyo methodskeeda iyo meel kastoo productivity lagaga warramayo muuqaal ha noqoto buug ha noqoto tababar ha noqoto inaad qayb ka noqoto inaad la noolaato waayo bini aadamku mar walba mashaakil cusub baa soo kordhaysa xaalado cusub oo inaga mashquulinaya wixii aynu qaban lahayn ayaa soo kordhaya idin xalal baa la raadinaya istaraatiijiyada cusub baa la raadinaya techniques cusub baa la raadinaya methods cusub baa la raadinaya xirfado cusub baa la raadinaya inaad la noolaato khayrka ilaahiga ah dadaalkaana waa ku jira baraka ilaahi subxana wataala waa ku gelinaya dadaalkaaga iyo wanaagaagaas aad samaynayso aad ku raad joogto noloshaada waxaad ka hormarin lahayd markaasood ku foogan tahay ilaahi subxana watacaala waqti barakana waa ku gelinaya sideedana dee xawaya waxaad baranayso waxaad soo kordhisanayso waxaad noloshaada aad ku qurxisanayso weeyaan inaasan kusoo koobaynaa muuqaalkeena maanta khayraad fara badan baan rajeynaya waxaan rajeynaya dhammaanteen ilaahi subxana wataala inooga baryaya nolol baraka leh oo dhan walboo laga eego san maanta tilmaamayda waxa weye nolosha maanta istaragalka ugu weyna maanta in haysta waa maxay wax wal haddaad u fiirstaan in badanoo ka mid nolosheena waxaynu u noolnahay sidii boqol sano ka hore u noolaayeen wax badan baan haysanaa qofku dhaqaaluhu haystaa gaari baa in badan ka mid a haysanaa dhici karaysa shaqooyin baan haysanaa waxbaa ina soo gelaya wax aan yacni 5 sano ka hor aan ina soo gelin baa maanta ina soo gelaya noloshan dhan walba markaad kuryahana way sii weynaanayaan gawaadhidiina way sii weynaanayaan shaqooyinkiina waa sii dhaqaalihiina waa sii kordhaya cilmigiina waa sii kordhaya skillkiina waa sii kordhaya haddana outputkii waa maqanya waan mashquulsannahay waan ordaynaa haddana nolosheeni dhadhankii iyo korriimadii iyo wixii way ka maqan tahay waa baraka la'aanta weeyaan toddobadaa qodob haddii aad dhaqan geliso waxaan isleeyahay baraka weyn wayba tahay waa isleeyahay kelimahay baraka weyn baa noloshaada ayaad ka arki doontaa hadduu ilaah yidhahdo khayraad fara badan rajeynaya ilaah subxana wataala nolosha baraka inoo geliyo inta maan ku gaajaysan yahay guriga weli waxa la akhriyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu